أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. إلهي هديان كسو بحي لسو دويني وحن كسو دويني قدوميها دقمدا مدني عبد الله علي أو النور كسو دو قدومي. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان مروين يمدن عيال انتينا كسو قيب قشي حفلدني آدي مهسنتهين كسو قيب قلك وين موجسين. waxa xafladani maanta ay noqonaysaa wajigii labaad ee soo dhaweyntii xafladii lagu soo dhaweynayay xildhibaanadii muddada sanadka ka maqnaa golaha deegaanka ee degmada. wajiga labaad oo noqonaya dhaarintii in lagu dhaariyo xildhibaanada sidii sharciga ahayd ee aan anagu hore u soo marnay la noo soo dhaariyay. wajiga saddexaadna uu noqon doono inuu maxaydna ilaa heer gobol u yimaado barsaabku oo arrin tan ka sii weyna ay dhici doonto haddii aan la yiraahdo. marka waxaan ku soo dhaweynayaa maxkamadda degmada lagu haya si ay u dhaariso xildhibaanada ku soo dhawaada. bismillahi raxmaani raxiim. marka koowaad waxaan u yeedhaynaa xildhibaan ibraahim jaamac meydhane. inta ismaqal hadaba waxa weeyaan daartu waa markhaati intaan markhaati ka tahay waxa weeyaan awful ahda inna al ahda kana mas'uula ila quraanka nabiga waxa weeyaan waxaan ku dhaaranayaa oo ilaahay u dhaaranayaa inaan dalkayga dadkayga inaan daacad u ahay oon dantayda gaar ahaaneed danta guud ee ummadda inaan ka horreysiinayaan ummadda ku dhaaranaya. waxaan ku dhaaranayaa oo ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa inaan dalkayga iyo dadkayga inaan dalka iyo dadkaygaba dantayda gaar ahaaneed dadweynaha ka horreysiinayo dantayda gaar ahaaneed inaan dadweynaha ka horreysiinayo daacadna aanu noqonayo calankayga iyo ciidayda daacadna aanu ahay calankayga iyo ciidayda. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xildhibaanka labaad muumin muuse ducaale. waxaan ku dhaaranayaa inaan dantayda gaar ahaaneed dadweynaha iyo dalkayga inaan u adeego yaan daacadnimo ilaahay ugu dhaaranayaa intaana ha maqasho hay dhegaysato sidaa iyo nabadgelyo. xildhibaanka saddexaad cumar waxaan ku dhaaranayaa inaan dantayda gaar ahaaneed danta dadweynaha iyo dalkayga inaan daacadnimo ugu dantayda hormarinayo oo dantayda gaar ahaaneed dadka ka hormariyo cadaalad aan u wadayo cadaaladna wada yaa ilaahay ugu dhaaranaya. ilaahay dartii ugu dhaaranaya. assalaamu calaykum. wassalaamu calaykum. saacadku ma yar wadan
dadka shacabeen yarsuga ay noo dhamaadaan hadalladu ay noo dhamaadaan khudbadiya imika waxa ku soo dhaweynay بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر dadweynaha sharafta leh ee reer Lughayad ee ka soo qayb galay xafladan lagu dhaarinayay saddexdii xubnood ee ka maqnaa golaha deegaanka oo maanta lagu soo khatimay xafladii ugu dambeysay ee dhaarta madasha degmada ee Lughaya waxa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha muujiyay walaalnimada iyo wanaaga ay u qabaan xildhibaanada soo biiray ay u qabaan wanaag ay u qabaan iyo galgacaylka ay u qabaan muujiyay ayaan u mahadnaqayaa haraad la isku qabay oo maanta biyihii la helay ayay u muuqataa arrinta maanta halkan ka dhacaysa cid kasta oo cadow ahayd maantay ka hadhaysaa dadkii markay tuseen walaalnimadii iyo wanaaggii dhexdooda iyo abtinimadii iyo cayladii isku ahaydba waa kaa maanta waa la wada joogaa golahoodii deegaankuna waa fadhiyaan waxay muujinayaan inay wanaag ku shaqayn doonaan cadaalad ugu shaqayn doonaan dadweynahooda inay ka hadho kala maqnaashaha sababay mar haddii ay maanta isku yimaadeen waxaad arki doontaan degmadaas oo camirantay oo dhaqaalaheedu kor u kacay allahu akbar allahu akbar dadaal badan buu doonay madaxweynuhu doonayay in arrintaasi ku dhammaato uu igu soo xil saaray waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha arrintaa ii soo xil saaray iyo arrinta siday igu dhammaatayba shacabka waxaan ka rabaa shacabkii hore waxaan ka rabaa iyo kii dambe meeshu iskugu yimidba inay shacabkii hore gacanta soo qabtaan dadkii ay wada dhasheen ehelkoodii qaraabadoodii inay gacanta soo qabsadaan oo ay muujiyaan walaalnimo inay u haraadanaayeen shacabka kalena uu ka oggolaado walaalnimadaa loo muujiyey iyo wanaagga wixii shalay dhacayay quruxdii shalay dhacaysay ummaddaa maanta daawan doonta telefishinada adduunka waa laga daawan doonaa caawimooyinkuna sidaasay idinku iman doonaa waxqabadku sidaasuu idinku iman doonaa allahu akbar allahu akbar somaliland ha noolaato madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed siiraayi ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado shacabku ha noolaado aniguna ha noolaado Porque que